Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada taxanaha cusub bilaawayno xalqadiisii koowaad. Maanta waxaan ka hadli doonaa qaabka internetka la iskuga qariyo imikoo kale hadaad hacking garaysid sidii aan loo soo ogaan lahayn location-kaagii. Anaa nidaadihin doona maanta cashirka magacaygu Yaxya Cabdiraxmaan qoraaga buugta Isbar Macallin La'aan buugta adiga halkaa ku arkaya somalibook.com baad ka dalban kartaa hadda linkigiisana hoos baad ku arkaysaa. Markaa mawduucaynaan hore u gelaynaa kaali haddaanad la soo degin cashir hore oo aan maalin hore soo dhignay baa kuu sharaxaya sida la soo degaysid. Muxuu ahaa markaa hore aan u gelaynaa saad qaabka la isku qariyo haddana asqara sidan camal baa kugu dhici kartaa. السلام عليكم مقالكن وكي ugu horeeyay muxuu ahaa taxanaha soo wadnay Hacker Somali 101 kaasoo YouTube ka soo dhigi doono muddada soo socota. Marka maqaalkan ugu horeeya waxaan ku wadaagaynaa cutub aad u muhiim anonymity baa la yiraahdaa ama qaabka isku qarin lahayd online-kaaga. Imka qof kasta location-kaaga ogaan karaa haddaad imka kale computer jabsatay IP address-kaaga aanaad qarin waxa qofku ogaan karaa hadduu qofki kuu soo diray for example linka blue teaming haddaan ka eegno linki oo kale phishing-ga oo imika haddaan muxuu ahaa isheeg sudabash imika kale waxaa jira software kan loo yaqaano NX Fisher kaasoo qofka password-ka lagaga phishing gareeyo for example hadduu linkigii kuu soo diray qofkaasi oo kale isheeg waad iska taabatay intuu kuu soo sharaxay uu ku yidhaahdo wax ku guuleyso aad iska gashay oo kale sidan camal imka Facebook face phishing weeyaan halkan isagu arki doona IP address-kaaga saxda hadda IP address-kayga saxda ah ma ahan oo kan waa local host-igi maadaama tijaabo ahaan ku soo saarayay laakiin halka IP address-kaaga qofku markuu helo location-kaaga ogaan karaa markaas siyaabooyin badan waxaa jira la iskaga qariyo imka kale haddii aad la soo degtid oo VPN la soo degtid oo kale VPN-ka ugu wanaagsan ee free-ga dhankayga waxaan u maleynayaa inuu yahay Proton VPN kaas oo aan hadda kaali ku soo degsaday marka VPN-kaygana maxaa Proton-ka kale haddaan kiciyo IP address-kayga aan hayno mid qarsoon buu siinayaa oo server-ka lagu kaa gelinayaa waxa hadda uu kacay IP address-kaygii marka haddaan location-kayga ka eego website kastaad gashaa location-kaaga wuu og yahay haddaanaad VPN isticmaalin marka haddaan imika VPN isticmaalayno kale halka waad arkaysaa location-kaygii maxaamka Netherland buu leeyahay qofkani joogaa marka anigu Netherland ma joogo IP address-kaana wuu siiyey kayga caadiga ahna wuu qariyay marka qof hadduu linkiga soo diro kale location-kayga ma ogaanay haddaan computer jabsaday ama haddaan uu jiro website aan rabin location-kayga ogaado kale waa sida haddaba qaab kalena uu jiraa qaabkaasoo ah muxuu ahaa halkan ma kugu tusi aan horta disconnect siiyo VPN-kaygan qaabkaasoo kale ah inaad isticmaasho Tor browser sida muuqaal hore ku sharaxayno waxa weeyaan aalad loo isticmaalo browser ama loo isticmaalo sida dark web iyo deep web loo galo laakiin hadda markaas muxuu ahaa oo kale aan website-kii ka galno isaga wuxuu ku siinayaa kolba location-kii ka duwan haddaan imika mar labaad muxuu tagno kale kolba location ku bedelaya oo dabaqadaha toore kala duwan ayuu kolba muxuu ku wareegayaa markastana IP address-kaaga ku siinayaa okay sida iyadoo tahay waxaa jira software kale oo kaali Linux lagu soo degsado kaasoo loo yaqaano proxy chain oo imika kale okay terminalka qofka hacking garaysay TeamViewer baa isticmaashaa marka waxaad ku horeysiinaysaa proxy chains kadib waxaad oranaysaa application-kaad furanaysid for example oo kale Firefox oo kale oo ku furanayaa Chrome baan ku furani saas camal oo kale marka anonymity waa ka oo inta ugu badan si aan qofku location-kaaga u imaan aad bay muhiim tahay marka waxaan filaynaa casharkan ku anfacay casharada dambena hacking-ga sii geli doonaa oo ku salaamaya marka wixii inta faahfaahin buugtan Isbar Macallin La'aan iyo buugtan Isbar Macallin La'aan website-ka Somali Books baad ka heli kartaan hadda ka gaaro ka faa'iideysta chance-ka